hawshii suuqii waa heer oo meel aada iyo aada fiican maraysa dadkii wixii loo kalaayay badankoodii la gaarsiiyey kuwii kalena loo wado la gaarsiin doono dhowaan maalmo gudahood inaynu marayno heer aynu bilowno inaynu qandaraaskii dhismihii aynu bixin waxaan u arkaa inay tahay wax ilaahay lagu mahdiyo ta u weyne ugu horeysa waxa weeye isku kalsoonida dadka waxaad moodaa 30 sano u dambeeyey inay dadka kalsoonida ka luntay oo qofku inuu wax qabsan karo ama mujtamac uu wax qabsan karo in laynaga saaray oo ra'yi qaldan oo ciidan bariya iyo qof soco ah aynu ku dhaqmeynay teena ma soconayso tusaale wanaagsan buu noqonayaa dhibaatada waahayn ka dhacday sida marka la isku tashado wax loo qaban karo ee looga hortagi karo dhibaatooyinka jira gudiyadiina hawsha galay ee faraha badan ee dadka badan tirada ka qayb galeen aad iyo aad baan ugu bogaadinaynaa ilaahayna wad ka abaalmarin doonaa taariikhdana ummad waxa noqon doonta ku gashay taariikhda dhibaatada dadkii maareeyay lagu hortagay qof kasta oo hawl ka geystay hadduu maalin dhagax meel ka qaaday soo quraanad biyaa maalin keenay waxay noqonaysaa tusaale wanaagsan oo aynu ku dayan karno si aynu dhibaatooyinka uga baxno hawshan imika ah dee guddiga saatiga annaga bogaadin baan la gudboon waa idinku bogaadinayna waana idinku taageerayna waana idinkula shaqaynayna hadalka farxaan waxaan ka dhadhansaday waar xaragadii danta aan iswaafajino taasina meesha way ku jirtaa xaragada iyo danta aan iswaafajino ka waxaan leeyahay shirkadda la siiyey ee naqshada keentay ha noqoto mid muddada ay soconaysa ay ku xidhan tahay tamarteena inagoo danta iyo xaragada iswaafajinayna inaan xaragada danta jiirin baa dawa oo dadkii ayaa dee muhiima marka inagoo naqshadaa ku soconna aynu labadaas waafajirna waa ra'yi aad iyo aad aan soo dhaweynayo halkan maanta anagu mahadnaq iyo bogaadin baan ku haynaa shirkadda Soodaaniga ee ku guuleystayna waa hambalyeynaa waana ku faraxsanahay